munaasabadani hanaankeeda dhicitaanaadka loo soo agaasimay ee ahayd caleemasaarka xafladda suldaanka guud ee beelaha Jibraaciin Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale ayaa waxaa ka soo qayb galay badi madax dhaqameed ka kala socday dalalka Itoobiya iyo Soomaaliland. munaasabadani ayaa sidoo kale waxaa ku sugnaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, wasiirro hore iyo wasiirro ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. haddaba munaasabadani ayaa ugu horeyn waxaa halkaas ka hadlay mid ka mid ah madax dhaqameedka gandaha dhaqanka ee beelaha Jibraaciin waxaanu ka waramay xulashada suldaanka guud ee beelahaasi Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale. waxaan nahay guurtidii soo caleema saartay oo 21 oo u fadhiday muddo ayaanteeda dabeed markay xadhay ay dhawalba ka rugtay ee reerka maaragtay taabatay ay tuujisay waxay iska soo saareen reerku Jibraaciin ama Jibriil Siciid ninba sidoo yaqaano Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale ayaa u soo imaamadnay oo soo caleema saarnay oo guddoonsiinaya suldaanka guud ee beelaha Habar Carfaan Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal waxaan kugu wareejiyay Suldaan Cabdinuur inaad iga guddoonto salaadiintana guddoontiiso. geestooda halkaas waxaa ka hadlay madax dhaqameedkii kala duwanaa ee munaasabadani ka soo qayb galay waxaana Alle uga bariyay Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale inuu ku asturo xilkaasi weyn ee loo igmaday. hadalkii waxaa leeyahay Suldaan Cabdinuur ku xidhnow diinta islaamka iyo shariicada islaamka markasta salaadiintana maanta salaadiintii way araga ahayd kaaga soo horeysay la tasho uqaasha la tasho umada la tasho talada badi go'aan degdeg iska ilaali yani ilaahay tala saaro waxaad garan weydeen xagga diinta islaamka oo carar gobolada bariga sool sanaag burco gobolada bariga waad haysataa kalsoonideedii beesha Jibraaciin waa loo idin la dooranay waanu idin la caleema saarnay waanu idin kula caana shubnay mar hadduu Suldaan Dawal uu qaatay suldaankii guud annaguna oo la qaadanay haddaan nahay gobolka Hawd iyo gobolka Maroodijeex iyo Saaxil iyo Tugdheerba intaba oo qaadanay waana naga guddoonay suldaankana waxa leenahay mood suldaan anu laba kelmadood uma qoray dhaga adeegow marka leeyahay dhaga adeegow wax walba ha u kicin dhuuntaana ogow waxaad marinaysaa waxaad hubsataa noqoto suldaan halkaana ogow idinka maxaa laga rabaa reerka oo kale deena la shaqeysaan leeyahay suldaankana suldaan wax si walba lagu la dardaarmay anagu waxaan kugu ducaynaynaa inuu Ilaahay xilka ku dhibireeyo inuu Ilaahay ku sakhiro ummadaas oo waxaan u soo jarmaadaynay suldaanka Jibraaciin oo nagu farxad ah oo aad iyo aad aan u soo dhaweynayno haddaanu nahay Ayuub Sheekh Isxaaq bin Axmed. suldaanka waxaan leenahay mood ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaa maanta lagu igmaday ee aad qabatay Allah ha kuu fududeeyo. waxaan leeyahay Cabdinuur waan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow dulqaadka iyo samirka lagu bartaa caaqilnimada. waxaan xaggan ku soo dhaweynayaa Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale waxaan leeyahay abtigay aad baan ugu faraxsanahay maanta inuu ku soo biiro saldaanaha dhaqanka dadka soo doortay Suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale waan idinka guddoonay taasi waa qodob xilka Allah kugu fududeeyo. geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba iyo waliba wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Professor Cabdilaahi Ibraahim Habane iyo waliba wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Mudane Axmed Muumin Seed waxaanay halkaasi ka sheegeen weeyar Suldaan Cabdinuur yaaqilka iyo intii la shaqeynaa sama arrimuhu waxay u baahan yihiin dulqaad iyo in laga tago wax badan oo gar u leedahay aad ka tagto waxaan ugu ducaynayaa Allah xilka ku fududeeyo. marka ugu horeysa waxaan ammaanayaa oo aad u ammaanayaa guddidii beesha Jibraaciin ee iska soo xushay suldaanka ee intay fadhiisatay go'aan ka gaadhay taartu waan ku hambalyeynaya marka hore
suldaan ilaahay hawshaa kuu dhabiyareeyo waa suldaan dhalinyaro ah waxaan kugu ducaynayaa anugu inaad noqoto suldaan isku xidha salaadiinta Soomaaliland oo dhan inaad noqoto suldaan katalisa inaad noqoto suldaan shaqada loo doortay ee ay maanta intaasoo dhaqana iyo beeshii Jibraacina ku soo doontay iyo beeshii reerka hawr afar oo dhan ay u joogtay Soomaaliland ba isku ka tirtay waxay ku doorayaan inaad noqoto suldaan dhaqan marka ka ilaahay kugu ilhaamiyo baliyo beesha Jibriil Saciidna waxaan leeyahay baliyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta wanqashan quruxda badan leh halkan la isku yimitay waxaan inii sheegayaa in dhismo cad oo warkiisu cad yahay oo kala had lahayn oo hogaamineed maanta uu gacanta qabanayo suldaan Cabdinuur oo wax ka qabyihi ana jirin baa inii sheegaya dalka dibadiisa iyo gudihiisaba geestooda waxaa halkaasi ka hadlay jiif caaqilka guud ee beelaha Jibraacin iyo waliba suldaanka guud ee beelahaasi suldaan Cabdinuur Sheekh Cabdilaahi Jimcaale waxaanay halkaasi ka sheegeen guddi la sameeyo guddidaana diyaar baan u nahay annaga 14 guddida ay imika hawsheedu markay halka ka dhamaato hawsheedii baan ku jiraa hadii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad uga mahadnaqayaa si aad noo soo ajiibteen ee noogu timaadeen ee waqtiga badan noo siiseen ee aad uga soo qayb gasheen caleemasaarkan iyo caanshubka sadanadeeda cusub mar labaad waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa salaadiintii iga horeysay dardaarankii way aragnimada lahaa ee ay siiyeen waxaana leeyahay dhammaanba waan qaatay waxaan idinka codsanayaa inaad xilka la idmaday igu ducaysaan waxaan idinka ballan qaadayaa cid igu jeclaata iyo cid igu necbaataba inaan ka shaqayn doono danta guud iyo horumarka inaan ku shaqayn doono sinaan iyo cadaalad ugu dambeyn waxaa si rasmi ah loogu aanashubay suldaan Cabdinuur Cabdilaahi Jimcaale oo si rasmi uga mid noqon doona madax dhaqameedka kala duwan ee dalka Soomaaliland waxaana munaasabadani intii ay socotay lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidiya dhaqanka Hussein Haatee Jaamac Hussein Gaafne deegaanka Jifa Galiley